Rowle oo loo diiday inuu la kulmo madaxweyne Farmaajo fariin uu gaarsiiyay xafiiska bartakoolka xisbiga nabad iyo nolol oo uu ku dalbaday inuu la kulmo madaxweyne Farmaajo oo jawaab la yaab leh kana naxiday laga soo siiyay. waa galwaradii warbixin degdeg ah oo aanu ku eegi doono ceeb ka raacday Rowle habeennimadii xalay iyo fariin uu u diray xisbiga nabad iyo nolol oo si la yaab leh looga soo jawaabay. wuxuu dalbaday inuu madaxweyne Farmaajo la kulmo uuna raaligelin soo siiyo, laakiin waa laga diiday. waxayna u sheegeen arrin ka naxiday oo aanu ka filayn inuu kala kulmi doono hogaamiyayaasha qaybta bartakoolka ee xisbiga nabad iyo nolol ee shaargareeya oo ku faafiya dunida meelba ku tuur muuqaalka beejkeena galwareed soo falo gareeya youtube-keena subscribe soo saar waa hagaagan ku bilaabo. ra-iisul wasaarihii hore ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed xuseen Rowle ayaa u diray fariin uu doonayay in lala kulansiiyo madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda maxamed cabdulaahi farmaajo. qaybta bartakoolka ee xisbiga nabad iyo nolol oo ayagu u qaabilsan dadka la kulmaya madaxweyne Farmaajo ayaan ilaa iyo hadda bixinin jawaabta u baahnaa Rowle ahayd in lala kulansiiyo maxamed cabdulaahi farmaajo. waxay u sheegeen in madaxweynuhu xilligan uusan diyaar u ahay inuu Rowle la kulmo oo aanu markaasi danaynayn la kulankiisa Rowle maadaama uu yahay nin aan aqoonin sida abaalka loo galo loo gudo. madaxweyne Farmaajo ayaa ra-iisul wasaare Rowle u magacaabay xilka wasiirka koowaad ee xukuumadda sanadkii 2020 arrintaasi oo Rowle uu markaasi ku jisaaray waxayna sababtay in ay kala go-aan isaga iyo madaxweyne Farmaajo. hadda oo talada dalka uu ka wareegay uu yahay qof shacab ah ayuu dalbaday inuu la kulmo madaxweyne Farmaajo, waxayna ku wargeliyay in madaxweynuhu uusan doonayn inuu qof shacab la kulmo. taasina ay kaga dhigan tahay in madaxweyne Farmaajo uu doonayo kaliya in markaasi Rowle ay iscafiyeen oo markaas sidaas lagu kala tago, laakiin la kulanka Rowle uusan madaxweynaha waxba usoo kordhin doonin. fariinta uu u diray Rowle ayaa waxay ahayd: waxaan danaynayaa inaan la kulmo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo oo naga mahad celiyo sidii uu awoodda iigu siiyey inaan hogaamiyo xukuumadda federaalk soomaaliya. arrintaas oo wax weyn iiga dhignayd. waxaan doonayaa inaad ii fududayda inaan madaxweyne Farmaajo la kulmo, ayuu fariinta ku yiri. laakiin qaybta bartakoolka oo usoo jawaabtay ayaa u sheegtay in xilligan uusan madaxweynuhu diyaar u ahay inuu la kulmo ra-iisul wasaare Rowle ayaa maalinimadii shalay maruu xilka wareejinayay waxa uu madashii xilwareejinta kaga mahad celiyay madaxweyne Farmaajo, isaga oo sheegay inuu ku mahadsan yahay sidii awoodda ugu siiyey inuu hogaamiyo xukuumadda Soomaaliya. Rowle ayaan gudin abaalkii loo galay maadaama uu dagaal siyaasadeed ku qaaday madaxweyne Farmaajo, arrintaasi oo sababtay inay kala ordhoobaan labada nin isagoo mucaaradkii madaxweyne Farmaajo kasoo horjeeda la saftay. Rowle ayaa daadihinayay doorashooyinka dalka oo madaxweyne Farmaajona uu korjoogto ka ahaa. arrintaas waxay sababtay in Rowle uu si toos ugu milmo kooxda mucaaradka uuna qaado tallaabooyin madaxweyne Farmaajo uu kaga soo horjeedo, wuxuuna madaxweyne Farmaajo go'aansaday in Rowle uusan siin waqti dambe islamarkaana uusan la kulmin ninka aan garaadka fiican lahayn ee markaasi aan qoomba abaalkii loo galay inuu iska gudo. Rowle ayaa dhowr jeer madalihii uu ka hadlay waxa uu kaga mahad celiyay madaxweyne Farmaajo, laakiin madaxweyne Farmaajo intii madalada uu ka hadlayay khudbadihii uu jeediyay marnaba sooma hadal qaadin Rowle. arrintaas waxay muujinaysaa in Rowle la dareensiinayo inuu yahay nin aan markaasi garanayn abaalkii loo guday, ayna jirin sabab loo soo hadal qaado maadaama uu yahay nin markaasi aan lahayn maskaxuu isku maamulo oo kooxda mucaaradku ay sidii rabaan uga adeegsanayeen inuu la dagaalamo dadkii soo dhisay ee isagoon waxba ahayn oo Nairobi ku sugan magaalada Muqdisho keena kana dhigay ra-iisul wasaare. madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa hadda ku sugan magaalada Muqdisho wuxuuna ka degan yahay guri gira. arrintaasi waxa ay sababtay in shacabku ay aad u sii jeclaadaan ra-iisul wasaare maxamed xuseen Rowle ayaa hadda waxaa ku furan eedo waaweyn oo la xiriira dhinaca musuqmaasuqa, dilka Ekraan Tahliil iyo sidoo kale arrimo kale oo ku xayndaaban intii xukuumaddiisa jirtay. arrimihii lacagihii la xiriiray doorashada ee laga qaaday xubnihii tartamayay iyo sidoo kale beesha caalamka lacagtii ay bixday ayaa sidoo kale lagu laayahay xafiiska ra-iisul wasaare maxamed xuseen Rowle. dad badan ayaa aaminsan in Rowle oo xilka kasii dega ay hadda abuuri karto xasarad cusub oo keeni karta in markaasi dowladda Soomaaliya ay wajahdo caqabado kala duwan oo la xiriira waxqabadkii Rowle ee dhinacyada ka khaldanaa inay saameyn ku yeeshaan xukuumadda ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre. madaxweyne Farmaajo ayaa November sanadkii 2020 xilka ra-iisul wasaarenimada Soomaaliya u magacaabay maxamed xuseen Rowle kadib markii uu iscasilay ra-iisul wasaarihii hore ama xilka laga tuuray baan yiraahday Xasan Cali Khayre. Rowle ayaa markii la soo magacaabay 5 bilood kadib bilaabay inuu dagaal siyaasadeed ku bilaabo madaxweyne Farmaajo, iyadoo kooxda mucaaradku ay u adeegsanayeen inuu la dagaalamo madaxweyne Farmaajo oo isagu gacan ka lahaa in Rowle uu gaaro heerka uu maanta taagan yahay.
marka loo eego sida Roble uu la dhaqmo madaxweyne Farmaajo ma ahayn si dad saaxiibo ah ama xataa isku aaminay jaga-intaas leeg ay isula dhaqmaan, waana sababta keentay in qaybta brotokoolka ee madaxweyne Farmaajo ay fariintii Roble keedka ku celiyaan ama ugu jawaabaan mid uu filayay mid aan ahayn. La kulan uu ka dalbada madaxweyne Farmaajo inuu la kulmo Roble ayaa waxay kaga dhigan tahay inuu markaasi cafis weydiisto, isla markaana uu kusoo bandhigo inuu madaxweyne Farmaajo la heshiiyey. Fariimaha uu u mariyay warbaahinta ee madalihii uu ka hadlay ee Roble uu ka raali gelinayay madaxweyne Farmaajo ayaa waxa ay markaasi muujinaysay sida Roble uu daneynay inuu la kulmo madaxweyne Farmaajo, laakiin taasi uma suurtagelin oo habeennimadii xalay ay riyadaasi barbartay sida aan ku helayna xogo kala duwan oo aan ka helnay xafiiska qaybta brotokoolka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Madaxweyne Farmaajo ayaa dhawaan la kulmay ra-iisul wasaaraha cusub ee Jamhuuriyadda Mudane Xamse Cabdi Barre iyagoo ka wada hadlay arrimo la xiriira qaabka loo dhisayo xukuumadda soo socota iyo sida madaxweyne Farmaajo qayb uga qaadan karta xasilinta amniga qaranka iyo la tacaalidda waxyaabaha markaasi dalka uu wajahayo, gaar ahaan arrimaha abaaraha, la dagaalanka argagixisada iyo sidoo kale deeq-bixiyaasha caalamka. madaxweyne Farmaajo ayaa 5 sano ee awoodda Soomaaliya joogay wax bedel ku sameeyay guud ahaanba haykalkii dowladnimada Soomaaliya, iyadoo la dhisay ciidamo qaran, sidoo kale goobo badan laga xoriyay ururka Al-Shabaab, isla markaana si weyn loola dagaalamay musuqmaasuqa oo ah caqabada kaliya ee Soomaaliya dowladnimadeeda tafaha ku dhagan. La kulan uu dalbado ra-iisul wasaare Roble oo ka dalbaday madaxweyne Farmaajo ayaa sidoo kale dad badan waxay ku macneynayaan inay tahay in Roble uu mustaqbal cusub ka dhex raadinayo la kulanka madaxweyne Farmaajo uuna rabo nin uu colaadiyay 1 sano ka hor inuu hadda xigaal ka dhigto arrintaasi oo madaxweyne Farmaajo aan ka soo hortageli doonin. Farmaajo ayaa sida dabeecad ahaan lagu yaqaan waxa uu tijaabiyaa ninka ay saaxiibada yihiin, marka siyaasadda la galana haddii ay isku bartaan inay qadadaf soo galaan xiriirka ayuu u jiraa, taasi oo ka dhigan in aanu marnaba ogolayn inuu xiriir la sameysto nin aan markaasi aqoon sida ballamaha loo ilaaliyo. arrimihii doorashooyinka dalka ee lasoo gabagabeeyey ayuu Roble gacanta ku hayay muddo dheer, isagoo ka shaqeynayay sidii madaxweyne Farmaajo meesha loogu tuuri lahaa. dhowr jeer oo warbaahinta soo fadhiisay intii dagaalku socday waxa uu sheegay in Farmaajo uusan madaxweynaha Soomaaliya ahayn. arrintaas waxay sababaysay siday u kala fog yihiin labada dhinac ayna caddayn buuxda u ahayd. wuxuu sidoo kale ku eedeeyey in madaxweyne Farmaajo uu isku dayay inuu inqilaabo xafiiskiisa, arrintaasi oo noqotay boog madow oo Roble aan ka harin, isla markaana mustaqbalkii siyaasadda iyo xiriirkii labada dhinac aad u soo xumayday. Roble ayaa hadda ku eedeysan kiis uu ka mid yahay kiiska Garan Tahliil. Faad Yaasin Xaaji Daahir oo dhawaan warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in Roble iyo saaxiibadiisa uu ka mid yahay Mahad Salaad iyo Cabdiraxmaan Al-Cadaala ay ka dambeeyeen dilka Garan Tahliil Faarax oo ilaa ay hadda la leeyahay raq iyo ruux meel jaan iyo cirib ay dhigtay. hadda waxaa bilowday baaritaano ku aadan sidii loo heli lahaa xaqiiqada kiiska Garan Tahliil, iyadoo Roble ay farta ku godan tahay, isla markaana xeeraaran tahay maxkamaduba ay qorsheynayaan inay kiiska Garan Tahliil baaritaan ay wadaan kadib ay soo ogaan dacwada ku aadan in gabadhaasi la helo halka ay ku maqan tahay. Sheegarayo xogaan qaybta faarada nabad wadaag aragtidiina tan iyo gobolka dambe nabadgeliyo.